marka hore liil sida ii maqashaa si fiican ku maqlaa si fiican ku maqlaa subax wanaagsan liil waxaad ka mid ahayd fanaaniinta Soomaaliyeed dhowaan waxaa soo baxday warar sheegaya inaad fankii isaga baxday waan usoo laaban doonaa su-aashaasi magaca ah liil baliil magaca rasmiga ay dadka ku yaqaaniin miya mise waxaa jira magac kale oo waalidka ay ku bixiyeen cabdiqani horta aada iyo aada u mahadsan tahay waan kuu mahadcelinaa maadaama jaankan ka faa'iideysanayo aan jeclahay wixii shalay aan video kusoo duubay inaan hadana maanta adduun weynaha u gudbiyo magaca liil baliil waa magac naynaas oo adiga waa taqaana dhalinyaro qof walba naynaas baa loo bixiyaa baliil wax dhalinyaro ii bixiyeen ahayd liilna waa mid iska yimaado waaye magaciga dhabtaa waa Salaad Maxamed Cali oo waalidkay ila baxaan waa tahay waa mahadsan tahay maxaa lagu bixiyay liil liil waxa la ii bixiyay maaha liil waa baliil ali bixiyay markii hore sababta waxa ka mid ah dhalinyarada iska jecel baliish inay deelaan oo waa taqaana xaaladda Kenya anigoo yaraa soo galay baliil iska dheedheeli jirna marka si fiican u soo jiray hata liigu bixiyay laakiin liil waa wax aniga ku darsaday aniga shakhsi ahaantii waa gartay shalay waxaa soo baxday warar sheegaya in fankii aad isaga baxday oo aad joojisay inaad haysto arrinkaasi ma jiraa waa arrin jira aada iyo aada u weyn oo weliba wax war soo baxay oo keliya maaha waa war aniga aan video soo duubay oo aan usoo gudbiyey ummadda Soomaaliyeed inta i taqaana oo iyo intii i taqaana intii yaqaanin si isku ogeysiyaan waana arrin aada iyo aada aan labadan beri ugu faraxsanahay runtii isbedel weyn isaga dareemay ilaahay waxaan ka codsanaa inuu isii fududeeyo oo dalabkayga sii galo waa oon adiga isbedel weyn aan iska dareemo farxad weyn aan iska dareemo waay waa gartay in badan ayaa fanka kusoo jirtay nin dhalinyaro ah oo weliba taageerayaal ku lehna fanka waad ahayd maxaa u sababa inaad isaga baxdo fanka horta cabdiqaniyow fanka waxa u sabab inaan isaga baxo horta waa ilaahay i abuurtay ilaahay wax gacantiisa kasoo dhamaan macquul maahan inay dhacaan marka fanka in isaga baxo waa arrin oon ilaahay xaggiisa iga timid waana ku shukrina alxamdulilah rabbilcaalamiin waa gartay go-aanka ah inaad joojiso qaadista heesaha ma wuxuu ahaa go-aan adiga shakhsiyadaada kaa yimid mise waxaa jira talooyin ay ku siiyeen dadka qaarkii oo aad ku qaadatay inaad fanka isaga joojiso runtii horta waa su-aal aada iyo aada u fiican haddiqani go-aanka aan fanka kasoo jeesta aan kasoo gaaray horta waa waxa garab igu siiya horta ilaahay hadeeste waa xaaskayga oo ka baxna ima aysan dhihin laakiinse waxay i dareensiisay oon in aanan wax fiican aanan wadin marka iyadaa garab iga siisay alxamdulilah rabbilcaalamiin ilahay iyadana khayr ha ka siiyo marka hadalkaaga waxaan ka qaadan karnaa guud ahaan qaadista heesaha iyo dhammaan waxyaabaha la xiriira fanka gebi ahaantooda waa joojisay oo waad ka laalaabatay waan joojiyey wax oo fan dambe nuuc oo raba ha ahaado fanka ma ogtahay dad waxaa jira oo fanka qaadi jireen oo haddana dhahayaan qaswide iyo waxaa u bedelanayna laakiin fan waay fan dhan waan kasoo jeestay oo ilaahay intaa soo maray ha iga cafiyo hana iga madoobeeyo waa gartay heese badan ayaad liil ayaad ku leedahay fanka Soomaaliyeed gaar ahaan waxaad duubtay muuqaalo aada u fara badan oo ku wada jira baraha YouTube-ka idaacado fara badan ayaa keedsaday oo haysta heesahaasi marka maxaad ka yeelaysaa kuwaasi aniga horta waxa channelkayga ku jiray sida YouTube-kayga ama adiga website-yaasha aan ku geli jiray fanka sababtoo fanka ani markii hore sabab waxa umalnaa dadka marka hore waxay u qaadanayeen wax ka sameeyo aan soo geli jiray hawada umalay ina u qaataan umalayna laakiinse waan ku shaqaysan ku ganacsan jiray waan ku shaqaysan jiray website-yaasha sida aan ku gado heesaha oo album markaa soo saara aageliyo aan ku gado oo wixii qarashaadka iga soo geli jireen kulli waa ka bixiyey YouTube-kana waa ka bixiyey dadka heestaana oo YouTube-kooda hadda xalay ay ugu dambeysay aan fiirinayay oo YouTube-ka aan ku arkay heesa badan ee weli ku jiraan runtii waan u sheegay videoga markaan soo duubay inay iga bixiyaan waan ka codsaday laakiinse qofka haddii oosan video gaarina waa kaasa hadduu gaaray oo asaga weli kusoo adag yahay oo
ku heestana dee wax kaloo ka dhihi karaa ma jirto. waa gartay salaad, taageerayaal fara badan ayaad fanka ku lahayd, markaad fanaan tahayna waxaa hubaal ah in aad tahay nin shaksi magac leh oo dadka bulshada laga dhex yaqaano. haata fankii waa joojinaysaa, taageerayaal fara badan ayaad luminaysaa. arrintaasi soo ma aha go-aan adag oo aad qaadatay? waa go-aan aada u adag oo aan qaatay, laakiinse taageero ma dhuminayo. waxaana ku dhuminayn waxa waaye taageerahayga markasta qalbigayga ayay ku dhex nool yihiin, oo aniga ayay ugu dhex nool yihiin. ayaka haddaysan ahaan lahayn aniga ma aanan jiri lahayn ma. marka taageero waa laga yaabaa wixii hadda kadib haddii aan sii wadi lahay fanka dadka hadda kadib i baran lahay inaan rumiyo waa laga yaabaa oo aanaan isbaran, marka maadaama aan iska dhaafay. laakiin intii hore ii taqaanay wax aan dhuminayo ma ahan. weligood way jiri doonaan, weligeed jaceylka aan isku qabnina wuu jiri doonaa. haddii shalay aan music iyo wax xumaana aan isku jecleen, maantana wanaaggaan isku jeclaanayna hadduu ilahay raalli ka noqdo. waan gartay, fanaannimadii haddii aad joojisay, wax kale oo ku qorsheysan oo aad is leedahay waad qaban doontaa miyaa jiro liil? wax aan qaban doono aan isleeyahay way ku qorsheysan yihiin ma jirto. waxa keliya oo maanta aan rabo inaan qabto waxa waaye in aan usoo jeesto xiriirka aniga ilaahay naga dhexeeya oo intaas iga soo dhumay. intaa hadda noolahay aan ka faa'iidaysto oo bointiga koowaad ah. bointiga labaadna waxa waaye in familkayga usoo jeesto, sababtoo cabdiqani su-aalo badan aan isweydiinayaa jira. waan guursaday alxamdulilah rabbilcaalamiin, laakiinse waxaan isweydiiyey berito markii awlaad ay ku dhalato, haddii aadan hadeertaan aadan iska xil saarin in yani waxa imaan karta berito awlaadaada in dugsiga intuu aado oo ku yimaado oo ku dhaho abe macalinka cashirkaas isoo siiyey wax iiga sheeg. de abiisana waxa waaye ninka tiyaatarka kor saarnayo oo mikinaya. marka waxaan rabaa intaysan taas aysan dhicin in aan usoo jeesto sidii diinta aan ku bara lahay, wax walba aan ku bara lahay, si berito awlaadeyda aan uga ilaali karo jidka aniga maray inay. waan gartay salaad, waxaan rabaa inaan ku weydiiyo, maadaama haatan aad ii sheegtay inaad fankii joojisay, intii aad fanaanka ahayd oo aad masraxiyada saarneed ee aad heesi jirtay, ma xusuusan kartaa waxyaabo kula yaab badnaa ee kusoo maraa? way jiraan, waa waxyaabo aada iyo aada u badan. waxa igu yaabka badan waxa waaye adigoo iska jiiftay, soo kacday subaxii, news ama adiga wararka Soomaaliya news iska akhriska rabta ama sports waxa rabaan ha ahaadaan, waxa arkaysaa website dan oo qofka daba dhigtay akhbaar dheer oo ka qoray waxna aysan ka jirin. adiga laftirkaaga ayaabis adees oh my god waxaan goormaad sameeyey, a'uudu billahi adees. marka waxyaabahaas ay ugu yaabka badnaayeen. qof aa ku wareersado wax walba iska soo daadiyo adigana aqoon kugu lahayn oo xataa magacaaga runta aqoonin oo wax kaas u qoraa. aad iyo aad. ugu dambeyntii su-aasha ugu dambeysa ayaan rabaa inaan ku weydiiyo, liil baliil ama salaad, waxa ay tahay ma laga yaabaa inaad dib ugu soo laabato fanka? waxaa jira fanaaniin badan oo iyagu kala hore sheegay inay fanka joojiyeen oo ay heesaha inay qaadaan joojiyeen, dibna ugu soo laabtay. marka adigu ma laga yaaba inaad dib ugu soo laabato? wallahi ma laga yaabo inaad dib usoo laabto. waa haddii la maqlo liil bilaa fanka kusoo laabtay waa iyadoo loo dhahay dalisyaal daraa soo noolaaday, macquulna maahan. so ma laga yaabo in aan kusoo laabto fanka. waa gacana ka taagtay sababtoo waxyaaba igu kalifaa xataa inaanan soo laaban karin waxa waaye labadii beri oo aan iska dhaafay farxadda iyo deganaanta iyo nimcada aan dareemay aaba igu soo celi karinba. waa nolol aan rabo inaan weligii allahi aa haysto. midada kale waxaan rabaa noloshayda normaalka inaan kusoo noqdo oo dhalinyarada Soomaaliyeed oo la aqoonin siday u nool yihiin inaan ku noolaado oo normaalkayga iska soo noqdaan rabaa. alxamdulilah, ilahayna ha igdorgalo. waa tahay dhegeystayaal, aad ayuu u mahadsan yahay. kaasi waxa uu ahaa fanaankii liil baliil oo sheegay inuu fanka soo gabagabeeyey isagoo ku sugan magaalada Nairobi ee caasimada dalka Kenya. wuxuu qadka taleefonka ugu warmayay idaacadda raadiyaha kulmiye ee magaalada Muqdisho iyo shabakada wararka ee Ummadda News. aad ayaad u mahadsantahay liil.